بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان رمضان welcome holy month رمضان أهلا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وغيبتي صدحي توبناد دروستي قابناد رمضاني قاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أفطر من رمضان يوما عامدا بغير عذر رخصه الله له لا يجزئه صيام الدهر ولو صام الدهر كله، أو كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. waxaan ku jiray dadkii ramadaanka iyo ilaahay amarkiisa fududaysanayey, axkaamta ilaahay ku tumanayey, weliba la mujaaharoonayey inay taa ku tunteen sida bareeraha u samaynayey. hadda bareeraha iyo waxaad mooddaa xagga in yar hays dhaamaane, laakiin waaba isla meeshiyo labada jeerba ama qarsoodi u sameeya afurkii oo ilaahay qarsoodi maxaa la yidhaahdaa u caasi ilaahay, ama bareera u caasi. labada jeerba ilaah baad caasiday, allana kuma muuga oo wuu ku arkaya. laakiin tan bareeraha yaa aad u darano inaad kuwo kale u horseedo inay iyana saa yeelaan baa macquul markaa, oo dembigu xaggaas kaaga sii bato oo dadka aad xubnihi u qurxisid wayba tahay. iyo inaad dadka aad leedahay waa ka waxaan doonaansi yeelaya ma soomaya anigu hortiinaan muus ku cunaya aad leedahay, isla markaana dadkii inay kugu markhaati furaan aad soo jiidanaysid, jaasjaasna ay kaa tahay adiga, wayba tahay. arrinkaa in laga toobad keena loo baahanye oo dhiiranaan wax lagu dhiirada adduunyada jira. ninkuu dowladda kuma dhiiran karay wuu baqayaa. haa, ninkii qor haysta markuu ku dhalka istaag jeebkaaga baadhanayo ku dhiiran mayso, iska dhicin mayso. bastooradii xabadda in lagugu dhuftaad yaad ka baqaysaa. markaa in lagu dhiradaa badan. ilaahay boqorka in lagu dhirado ma aha. ilaahay waa xaliim, waa xaliim. ilaahay xaliim buu la baxay. laakiin xilmigaa ilaahay adigu ku dhibaya, wuxuu kuu dhibayaa marka qaarkood in lagu moogyahay intaad moodid baa dembiga aad sii buquuraysaa oo aad sii badsanaysaa. nimanka mujaahiriinta ah inaan la saamixin, nebigu xadiiskiisa buu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam. ilaahay khalqigiisa wuu saamaxaa dunuubtooda, kuwa markaa sida bareeraha u samaynaya mooye. nimanka mujaahiriinta waa kuwa ilaahay caasiyey, oo marka ilaahay ay caasinayna alla uu asturay. xalaytuu masalan meel ka dhacay, xalayuu bahalaystay ama tuuganimuu galay, waxunbuu sameeyey, ilaahay wuu asturay. markuu waagu baryuu ka sheekeynaya odhanaya, anigu xalay waxaabaan yeelay, heblaaya waxa aan ku sameeyey, maalkaasaan soo dhacay. isaga baa markaas dadka u caddaynaya. kanuna waabuu ka sii daran yahay, soomka dadka hortooda wax ku cunaya, kuwa kaleeto xumihii usii qurxinaya. marka waa arrin aada u weyn in lagu dhiiradana ma ah. culammada muslimiinta, culammada islaamka oo dhan waxay ijmaaciyeen calaa anna man aftara yowman caamidan min ramadaan, qofkii si kas ah oo ikhtiyaar ah isaga afura maalin ramadaan, kaana ashara cinda allaahi, wuxuu ninkaasu yahay yidhaahdeen ay ku ijmaaceen inuu yahay mid ka shar badan ilaahay agtiisa. miisaanka markii la saara ninka wuxuu ka shar badan yahay min azani wa mudminu lkhamr, yuu ka daran yahay. ninka zaaniga oo dembigaa weyn oo saddexaad kasbaday sameeyey zinaduna wax sahlan maahe
madaradeeda mid kuwa kale dadka mujtamac u tallaabaysa waaye mid kugu ekaanaysa ninka zaaniga keliya ku ekaata maaha dembiga zinadu ee mid sii tallaabaya oo khalqigii kaleeto dhibaato u geysanaya garacya abuuraya gabdhihii markaa dhilannimo siyaadaha ku beeraya wiilashii ku beeraya inay dhilaystaan waa mid wax madaradiisu ummadda kale u tallaabayso zinada ilaahay qur'aanka markuu ka hadlay zinada uu xaaraantinimaynayo laa tazinuu ku arki maysa tanziilka laakiin walaa taqrabu zina baa ilahay boqorkaa leeyahay saasuu nooga reebay aagga zinada ha u dhowaanin oo marka xudxudashadii zinada ka dambaysay iyo wixii la mid ahay taataabashadii iyo taleefonka lagu wada hadlayey iyo wax noocaas ah ha u dhowaan buu ilahay ku leeyahay eegmadii baa ka mid ah zinada noocaasoo ilahay saa u xaaraantimay halkaa uu geeyey ninkana ka daran maalin ramadaan afuray iyo mudminul khamri ninka caqligiisa ku ciyaaraya oo khamriga dul taagan had iyo goor khamriga cabaya ilbaxnimo moodaya dhulkaa gaala dad jooga yaa markaa khamriga aad u isticmaalaya kuwa ka yimid dalka yimid kuwa kale u qurxinayaan dhalinyara laga sheegayaan maqlaya waa hore odhanaya in laba qodob oo markaa aan si sahla lagu helin khamrigaa laga helaa bay yidhahdeen baa layidhi waa in codkaagu uu burbuurto waaweynaado iyo in calool yar xulusa qofku yeesho khamriga marka khamrigaan isticmaalaynaa waa doqonnimo halkaasay qurux ka doondoonayaan war quruxdu waa diin iyo ilaahay oo loo tooso iyo aakhiro loo shaqaysto markaasaa sharaf aad khalqi ilaahay agtiisa ku yeelanaysaa khalqiga agtiisana darajo aad ku yeelanaysaa ninka ama gabadha markaa u afurta ama qofka afura iska dhel isku dub labadu qofka afura maalin ramadaan si kasta isagoo awoodo loo fasaxin iska afura soonkii jabiya ilaahay agtiisa inuu ka daran yahay qofka zaaniga ah iyo qofka khamriyacabka oo khamriga aan ka dulkicin labadaa inuu ka daran yahay saasee muslimiinta culimadoodu waa weyn ay ku ijmaaceen alimaam ibnu xasmin waxaa laga warramay ibnu xasm inuu yidhi dhanbaani lam ajid acdama minhuma buu yidhi bacda shirki billahi tacaala ilaahay oo loo shirki yeelo oo cibaadadiisa wax kaleeta lala wadaajiyo dembigaas aadka u weyn wixii ka dambeeyo dunuub ah ma aanan arag laba dembiyo ka weyn kuwa hadda uu soo wada war dambaan laba dembi lam ajid acdama minhumaa wax ka daraan badan ma aanan arag laba dembi shirkiga marka laga reebo waa rajulun akhara salaata can waqtihaa xataa kharaja waqtuhaa waa nin ama gabadh salaadii dib u dhigay oo dib u dhigay oo dib u dhigay ilaa waktigeeda u baxay waktigeedii qado ka noqday sidaa yeelay kaasina salaaddii buu fududaysanaya ugu hadi ciyaar ama facebook uu ku jiro ama telefon uu ku hadlayo ama kubad uu daawanayo ama wax ganacsi uu ku jiro yuu salaaddii dib ugu dhigaya in baa ka dhiman si uu lahaa yaa casar ka tego maqrib lagu aadaamay ninka noocaasa dembigiisu ma sahlana waxaa loo baahan yahay haddii salaadda xilligeedii la gaaro wax walba dhulka in la dhigaa loo baahan yahay gabadhii ubadkii ay naaska u dhigayso nuujinaysay inay dhulka dhigtaa loo baahan yahay oo ay tiraahdo saacadda ilaahay baa la gaari waa inaan salaada tukadaa marka salaadda la tukado dabeed wixii la qabanaya ha la qabto markaa waxay odhan jireen kullu shay bacda salaa waa kelimad aad u qurxoon oo aad u fiican waay wax walba waa salaadda kadib baa la sameeya qofkaas markaa afuray oo salaaddii fududaystay badanaa dadka kubadda ciyaara ama kubadda daawada arrinkaa way sameeyaan ganacsigu wuu sameeyaa kaas ka digtoonaada adigoo salaadda dib u dhigay oo hadhow tuka is odhanaya qadana kaa noqotay malaga ar buu kuu yimaadaa oo salaad la'aan dabeedna maa salakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin naartaa saqar lagugu rido markaa yaa ku aabbiyi hooye ah lacagta aad ka sabaysay wax ku tari maysa maalinkaa warajulun aftara yowman iyo qof markaa afuray maalin ramadaan ah kas u afuray dembigiisa iyo ninkaa salaada dib u dhiga dembigiisa wax ka weyn ma jiraan bay yidhaahdeen ibnu xasan baa laga warinaya shirkiga mooye saasee marka culimmada islaamka dhammaantood ay u adkaynayaan way adkaynayaan in kas loo afuro aad iyo aad bay halis u tahay nebigu wuu habaaray ninka calayhi salaatu wasalaam wuu habaaray
oo waa tii xadiiskiisa mimbarka isagoo korayey saddexda darajo markuu ka hadlayey saddexda darajo markuu korayey saddexda markaa aaminsaday aamiin 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 yidhi saddexda qof markaa la habaarayo oo nebigu asna uu aaminsanayo waa saddex qof oo fursad weyn intay soo martay ay ilaahay ugu dhowaan kareen janno iyo markaa meelsan ay ku kasban kareen cadaabka ilaahay inay uga badbaadaan ku kasban kareen haddana ayagu markaa maxaa la dhahaa ayagu islumiyey ayagu godkaa iska tuuray bay saddexduba ahaayeen mid wuxuu ahaa mid labadiisii waali ama mid ka mid ah adduunye kula kulmay dabeedna sababkooda aan janno ku gelin sababkoodii buusan janno ku gelin oo se u gelaya sababkooda janno wuu u baarinimo falayaa taasaa laga waayey waalidkii nin dhib u ahaaday u fiiri cidhiiriyey silciyey hadalka ku dhibay murjiyey buu noqday marka habaar baa ku dhacaya walow xataa afka ayan ka habaarin habaarka iyo ducadu labaduba waa wax qalbiga ka imaanaya haddaya in waalidkaaga kugu soo daalay adiga tacabkiisii asaga tacabkiisi baa tahay maadaama aad tacabkiisi tahay in aad waalidka aad dayacdid waa dembi aad u weyn dembi aad u weyn weliba qur'aanka waad aragteeno waqul rabbi irxamhumaa waqfid lahumaa janaaxa duli min araxma saa markuu yidhi ilaahay oo waalidkii isku dulley oo u jilicsanow oo hadalka u jilci oo dhaqanka u jilci markaad saa ugu baarinimo fashid kadib waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiiran intaa keliya adigu maxaa la yaha xaqooda kuma gudi kartidi ilaahay u gudbo warqadooda waqul waxaa tahay rabbi irxamhumaa ilaah u naxariiso waalidkii kamaa rabbayaani sagiiran yaraantiisay iisoo hagaajiyeen ilaah ugu naxariisa adigu abaalkooda iga gud adigu anugu kama bixi karayo macnuhu waa caynkaa ninka noocaas ah aan sidaa aan samaynin oo dartood aan markaa janno ku kasbanin naarta allah ku fogeeyo saasuu ahaa saddexda jeer markuu nebigu aaminsaday saxaabadii way weydiiyeen yaa duceeyey maadan ducayni waxba maynaa maqal annaguye jibriil baa ducaynayey caynkaasuu yidhi ninka waalidkii mar mid ama labo adduunye kula kulma oo sababkooda aan janno ku helin ku kasbanin kaa isagaa isdayacaye naarta allah ku fogeeyo aamiinna maxamedow nebiguna markaa wuu aaminsaday maxaad moodaysaa markaa duco jibriil ducaynayo xabiibkuna markaa uu aaminsanayo halkaasaan qaybta dambe kasii wadi doonaa wakti baa dhacay wallahu tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu Ramadan, welcome holy month.